السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيارتو ايدين سلام دمان تسادو دنتهين مeel kastoo kala joogtaan dunida daafaheeda waxaan idin leeyahay soo dhawaada markale halkaad igala socotaan waa ladan official dhageystow haddii aad igu cusub tahay fadlan isku day inaad channelka subscribe gareyso muuqaalkana aad like gareyso gambaleelka on ka dhigo si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oo soo share gareyno haddii aad hore iila joogtay soo dhawow isku day inaad like share comment iyo sameyso insha Allah waa ii dhiirigelin waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan dhammaantiin insha Allah waxaan rabaa inaan idin la wadaago qisadii sida hore noogu socotay Cusmaan bin Affan qisadiisii ama noloshiisii shalayto part 1 ayaan soo dhignay insha Allah hadana waxaan rajeynayaa part 2 inaan soo gudbiyo ka bogashada wacan iskuna day walaal inaad khayr ka faafiso waasi oo yani ama walaalka ama walaasha ay u fahantaa saxaabada qisooyinkooda isku day inaad la wadaagto familkaaga iyo faniskaaga sida tan ay ku bilaabanaysaa qisada kusoo dhawaada markale insha Allah shalayto waxay inoo mareysay aan ku joojinay Cusmaan bin Affan inuu nabiga wax badan agtiisa u ka dagaalamay sida dagaaladii Uhud yani dagaalkii Badr dagaalkii Uhud dagaalkii fiisyada qabsashadii magaaladii Makka dagaalkii Khaybar dagaalkii Hunayn iyo dagaal go'doomintii Taif dagaalkii Tabuk yani dagaalo badan ayuu Cusmaan nabiga agtiisa ka dagaalamay sallallahu alayhi wasallam dagaaladaas oo dhan waxaa qarash aad iyo aad uga baxay ama ku qarash gareeyay hubabkii wixii la isticmaalay markaas bixiyay inta badan Abu Bakar as-Siddiq sida tan ay noogu bilaabanaysaa shalay meesha ay noogu ekeed maanta waxaan rajeynayaa inaan kasii wadno kusoo dhawaada walaal la wadaag walaalka ama walaasha si ay wax aga barato saxaabada qisooyinkooda waa inoo bilaabi doona insha Allah si kasta ahaatee geeridii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii uu geeriyooday Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaa khulafaa ar-raashidiin si waafaqsan dardaarankii nabiga isla garteen in Abu Bakar lagu wareejiyo hogaankii iyo taladii maamulka dawladda Islaamka waqtiga waxaa dhacay khilaaf aad u weyn oo dad badan ay diinta Islaamka dib uga noqdeen maadaama Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu geeriyooday waxa ay leeyihiin maadaama nabigii waxyigii ku soo dagayay uu geeriyooday ama waxay leeyihiin yani waxaan aga baxnay diinta aawadeeda maadaama uu dhintay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax waxyigu ku soo dagaya malahan ayay leeyihiin kacaankii lagu bilaabay Cusmaan bin Affan sanadii 30 ilaa sanadii 31 hijriga waxaa ka soo baxay Yemen nin la oran jiray Abdullah ibn Saba oo al-Yahuudiya ahaa oo ka soo jeeday yani Yahuud hooyadiisna waxa ay ahayd Islaan madow ah sidaa darteed waxaa loo naaneysi jiray ama lagu naaneysi jiray Abdullah waxaa lagu naaneysi jiray inahbar madoobe wuxuuna ahaa Yahuudi muddo dheer ku noolaa Yemenna waxa ay Islaamka ka hor hoostagi jirtay boqortooyadii Bershiya Faris sidaa darteed Abdullah ibn Saba wuxuu wax badan ka bartay qaabkii caqiidadii dabcaabudka ee al-Majuusiyya Abdullah waxa uu u weel qaatay sidii uu u foreemi lahaa Islaamka iyo muslimiinta wuxuu bilaabay in uu sii diyaariyo sidii uu u fulin lahaa hawshiisa ama hawsha aad u baaxad weyn ama wixii dabintii uu rabay inuu dadka diinta aga leexiyo Abdullah waxa uu bilaabay inuu islaamnimo muujisto bilowgii hogaankii khilaafada Cusmaan bin Affan radiyallahu anhu sidoo kale wuxuu bilaabay inuu safaro ku maro dhulal badan oo ay ka mid yihiin dhulalka Islaamka wuxuu bilaabay inuu fuliyo suntii uu ku burburin lahaa muslimiinta ugu horeyn waxa uu tagay Xijaas laakiin waxa uu ku hungoobay yani qorshihiisa ma uusan u fulin hankiisii ahaa in uu saldhigto fikradihiisii sumeysnaa ee uu watay Abdullah ibn Saba wuxuu u sii gudbay Ciraaq halkaas oo uu arkayay inay tahay meel nugul fidnadana iyo qalooca gaar ahaan yani fidnada iyo qalooca inay ugu nugushahay uu arkayay asi ahaan inay tahay meel uu u nugul fidnada iyo qalooca gaar ahaan magaalada Basra uu leeyahay halkaasi
oo uu kula kulmay nin lagu oran jiray ama lagu magacaabi jiray Xaakim ibnu Jabalah, kaasi oo ahaa muslim tuug ah oo ku nool kaasi oo ku noolaa ama yacni wadamada islaamka ayuu ku noolaa, wuxuuna ku duuli jiray dadka ahlu kitaabka ah ee ku hoos nool dowladda islaamka oo yacni aan weli diinta si fiican aan u fahansanin. Isla markaana wuxuu ahaa Xaakim ibnu Jabalah nin akhlaaq xun, taasi oo sababtay in khilaafkiisii muslimiinta Cusmaan ibnu Cafaan radiyallahu canhu uu ku xabiso magaalada Basra. asxaabta qisada Cusmaan ibnu Cafaan aad ayay u dheer tahay, waxaan rajeynayaa inaan biro dhammaystiri doono insha Allah. waxaana rajeynayaa inaad igala bogan doontaan, lana wadaag walaalka wixii dhiirigelinaya qaybta commentiga igu reeb, wax ka baro saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasallam qisooyinkoodii. waxaana mar walba wanaagsan oo ku dayasho leh in lagu daydo dadka wanaagsan si uu beri ka maalin akhlaaqdaada ay u toosto, aakhiradaadana wax ay kugu tarto insha Allah. waxaan idin leeyahay tan iyo kulanto dambe, wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.